wasiirka wasaaradda waxbarashada la taliyaha guud ee agaasimaha dhammaan waxaan rabaa inaan ku salaamo salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib waxaan rabaa aniga oo ku hadlaya afkayga iyo afka reer Bitaale degmada reer Bitaale shacabkeeda inaan soo dhaweyno wasiirada sharafta badan leh degmada Bitaale maanta nagu soo booqday. waxaan rabnaa inaan dhammaan soo dhaweyno oo niraano soo dhawaado wasiirada mudanayaal dhammaantiin degmada aad timaadeen waa degmada Bitaale dadkii aad ka dhalateen waxaan leenahay dhammaantiin aad iyo aad baa mahadsantiin soo dhawaada. waxa ilaahay xamdigiisa maanta inaan ugu soo booqateen degmada Bitaale anigoo danaynayno inaad noo timaadaan in dhowreynana waxaan ku faraxsanahay maanta inaad Bitaale aad ugu soo booqataan aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa. mahadcelinta bacdi anigu waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo odayaashii dhaqanka dhalinyaradii ardadii aqoon-yahanadii kulli waa maanta waa fadhiyaan. waxaan rabnaa inaan fursadeena maanta ka faa'iideysano qaaliga waxaan leenahay soo dhawaada walaalayaal aad iyo aad baa mahadsantihiin soo booqashadaana soo booqateen oo aan ugu soo booqateen deegaankan oo maanta waxfaafintii iyo saxaafadii iyo waxbarashadiiba ay ku dhantiin wasaaraddii waxbarashada. waxaan u malaynayaa haddii wasaaraddii warfaafinta ay socoto waaxdii waxbarashadana ay socoto waxyaalaha deegaanku u baahnaa qayb ka mid ah oo qaybta ugu muhiimsaneed ayaa maanta nala joogta. wasaaradihii ay u baahnayd deegaanku inay ka warbixiyaan ama xaaladiisa daraaseeyaan ayaa noo timid. waxaan rajaynaynaa inaan wax badan oo deegaanka u baahan yahay oo wasaaradahaasi aan ugu ceel qabnay oo aan lahayn waqtigeeda aad uga faa'iideysan doontaan inaan maanta idin soo hordhigi doono idinkuna aad nala arki doontaan. aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waana ku faraxsannahay soo imaatinkiina. wasiir ku soo dhawow deegaanka Bitaale waxbarashadiisa meesha ay marayaan waan rabnaa inaan warbixin yar kooban inaan dul marno. deegaanka Bitaale sidaynu la ogyahaba muddo 10 sano in ka badan ayaa dadka deegaanku ama qurbo joogaadeen ama ganacsatada ahaadeen ayay soo wadeen intaas la soo dalaadhacayeen qolaado abaaro iyo waxyaalo kala duwan oo ku xayndaaban ayay dhabarku u riteen inuu iskuulka u sii jiro. intaasna ma jirin wasaarad door muuqato ku leh. waxaan filayaa inay noqon doonto wasaaraddii ugu horreysay ee galmudug oo door lixaad leh ka qaadan doonta. waxaan filayaa sidii madaxweynuhu yidhi waa dowladda horumarinta iyo galmudugta cusub inay reer Bitaalana ay maanta wasiirkeeda la jooga wasiir ku-xigeenkeeda la jooga waxbarashada iyo guddiga kala duwan ee waxbarashada inay maanta baahiyadooda halkan ay ka qaadi doonaan. haddii waxaan ka taabto horta iskuulka guud wuxuu u baahan yahay dayactir guud buu u baahan yahay. wuxuu u baahan yahay agabka waxbarashada qaybihiisa kala duwan. wuxuu kale u baahan yahay in lagu siyaadiyo galaasyo. wuxuu u baahan yahay dugsi sare in laga yeegleelo maadaama uu yahay dugsi hoose dhexe. wasiir waxaan filayaa deegaanku intaasuu soo waday maantay adiga ayaa gacanta ku gelinaynaa dugsiga Bitaale oo ah dugsi babliga ama dugsi guud oo aan deegaanku leeyahay wax qarash aan laga qaadan ardada. aad baan runtii uga mahadcelinaynaa sida sharafta leh qiimaha leh odayaal iyo hooyooyin iyo dhalinyaro iyo maamul reer Bitaale aad maantay noo soo dhaweyseen shaqooyinkiina u soo xirteen. aad baan horta anoo ku hadlahayaa afka wafdiga baan idinkaga mahadcelinaynaa. mahadcelin kadib warka muhiimadiisa madaxda ayaa iskala iga dambeyn doonta insha Allah. waxaa safarkan wuxuu ahaa ujeedadiisa ugu weyn safar waxbarasho. inkastoo uu nala socdo Axmed Shire wasiirka warfaafinta nala socdo wasiir Falagle oo khabarkan aruurintiisa iyo wasiirada kale oo khusayso baahiyooda meesha laga sheegay warbixinta ku celinteeda uu asoo qayb weyn ka qaadan doono oo faahfaahin doono. laakiin waxbarashadan
safarkan ujeedadiisa ugu weyn waxay ahayd safar waxbarasho. waa dareemi kartiin wasaaradda waxbarashada federaalka awoodeeda intay la eg tahay, tan galmudugna waa dareemi kartiin inay iyaduna haddii wadankiiba kala daadsan yahay tii federaalkana waa fahmi kartiin. saas iyadoo tahay iyadoo ah ayaa waxaanu goosanay inaan bal horta aragno baahida waxbarasho deegaanka ka jirta. wasiirka iyo dad la socdaa waxay ku baxeen qaybo ka mid ah galmudug, qaybo waxay ku baxeen dhankan galbeedka ah ayay ku baxeen, dadna waxay ku baxeen wasiirkana waxay aadeen safar kale, annaguna waxaan soo aadnay dhankan isku ah bari iyo koonfur bari ee galmudug. safarkan ujeedadiisa waxay tahay in loo kuurgalo baahida bal ka jirta waxbarasho, ardada waxa ka jirta siday wax yihiin. degaan walba duruufo khaasa ayuu leeyahay. degaanadan soo marnay wax waa la wadaagtiin iyo kuwa aan mari doono, wax inii khaasana waa jiraan. isu imaatankeena iyo sida aad noo soo dhaweyseen iyo waqtiga aadna siiseen oo noo sharafteen waa idinka filaynay. annagana wixii aan maaragtay aan la soconay ilaahay ha ka dhigo kuwa maaragta aan isku fahamno, aan waajibkooda ka soo baxno, mustaqbalkana insha allah ay ka soo baxaan waxna wada anfaca insha allahu tacaala. wada socodkeenu waa jiri jirtay in la yidhaahdo wafti inta idin yimaado dowladda hala raaco, maamulka hala raaco. annagu waa idin leenahay laftarkeenna maamulka hala raaco, dowladnimada hala quweeyo, hala isku xirmo. maamul waxba kuma dhibo inuu xuquuq kugu yeesho oo kugu waajibiyo, isaguna uu xaqiisa kaa qaato. dhibaato male marka meesha uu xisaabta jiro, wax dhibaataa ma laha. in marka xaq iyo waajibaa la yidhaahdaaye dowladdu waxay idinka rabto oo yarna aada raacdaan, wax badan oo ay dowladdu haysatana aad ku xisaabtantaan oo ay idiin soo noqoto. marka meel aan maamul jirin ma xisaabtami karo. dhexdiinnana waxaa laga rabaa isku xirnaan, wada jir, wada socod,